السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أن جعلها ميل والبو دنيدا كجوكتان waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho waxa caawa weerar lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Muqdisho kaasoo lagu magacaabo Hotel SYL waxa weerarkaas soo qaaday maleeshiyaad ka tirsan qawaarijta al-shabaab waxaana rag hubeysan markii dambe gudaha u galeen Hotel SYL su-aasha shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay caawa isweydiinayaan ayaa ah halkee ayay soo mareen maleeshiyaadkan iyo gaariga ay wateenba maadaama aan ogsoonahay in Hotel SYL ama madaxtooyada Soomaaliya hareeraheedaba ay yaalaan checkpointiyo aad u adag aanan si fudud looga gudbi karin taas ilaa haatan jawaab uma hayaan shacabka Soomaaliyeed waxaase laga sugayaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ay sameyso baaritaan degdeg ah oo la xiriiro halka gaarigan ka yimid iyo cidii fududeysay iyo sida uu ku soo gaaray Hotel SYL ee magaalada Muqdisho qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya saxafiyiin oday dhaqameed iyo shacab halkaas imaaday waayahan dambe magaalada Muqdisho amnigeeda ayaa soo roonaanayay sidaan ka warhayno waxaana la keenay ciidamo aad u tababaran kuwaasoo checkpointiyada laga soo galay magaalada Muqdisho baaritaan xoogan ku hayay walow caawa laga yaaban yahay halka uu soo maray gaarigan qaraxa ah iyo maleeshiyaadka la socdaba su-aasha jawaabteeda waxaan ka sugnaaba waa dowladda Soomaaliya ma aha markii ugu horeysay ee weerar sidaan oo kale lagu qaaday Hotel SYL ee magaalada Muqdisho laakiin waayahan dambe magaalada Muqdisho waxay ka nasatay qaraxyadii isdaba joogga ahay waxaa la rumaysan yahay in maleeshiyaadka al-shabaab ay awoodoodii aad u daciiftay markii la doortay kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waana arki doonaa jawaabta dowladda Soomaaliya ay ka bixiso weerarkii caawa lagu qaaday Hotel SYL ee magaalada Muqdisho waana nila soo socodsiin doonaa waxyaabihii ku soo kordho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته